الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلهي بقى مهدسن وقهرين إلهي بقى مهدل سبحانه وتعالى ينفذ ذي نولشة وحيالها يرير إنه هيستقد ظروفها يدي باتوين كهنا هو امتحان نحريستي سكبضا إلهي إلهي نقوم ذي نحري إن نقوم هاد نغنو مرباتك waxaan halkan u nimi sidii mas'uuliyiinta igu horeeyay sheegeen gurmad xaaladda shuban biyoodka ee gobolka awdal ku soo korodhay magaalada madaxiisa Boorama marka waqtigii labaad ku soo laba kaclaysay ayaan u nimi guud ahaanba waxaynu soo maray marxalad adag oo abaara oo dalkeena saameysay oo dad ku dhow ilaa iyo 2 milyan oo qof oo muwaadiniinta dalkana ilaa 1.7 milyan lagu qiyaasayo saameysay xoolo badan inaga laysay qaran ha baynu isku tashanay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu bulshada ugu baaqay inay iskaashato waxa qarankii ka dhigay heegan xukuumad ahaan waxba lama hadhin bulshada Soomaalilandna way dadaashay waxba lama hadhin hogaamiyaha ummaddu wuxuu ku hagaa ummadiisa himilada ay duruufaha kaga baxaan taasi waxay keentay in abaarta saameysay 150,000 ee family saameysay 300,000 ee qoys saameysay ee reer Soomaaliland dad tiro ka badan 10 qof iyo dhowr iyo 10 qof inay abaarahaasi inaga dilin abaaraha waa lagu madhaa duruufo adag baa laga helaa waxa inoo weheliyay markii roobku daay abaaruna gabagabahayaan xanuunkan shuban biyoodka wuxuu ku dhacay dad dhowr iyo 10,000 oo muwaadiniin ah ilaa 12,000 ilaa iyo 13,000 dad gaadhaya waxaan qiyaasayaa meelahaas tirada rasmiga ah waxa haysa bahal caafimaadka oo in ku dhaway gobolkan ay kaga dhacday waxay naga dhintay 260 qof dadaan ka badnay halka waxa ka muuqata cudurkii wuxuu inaga dilay abaaruhu waxaana inaga dilay waa la dadaalay wasaaradda caafimaadka oo wasiir Salebaan Dr. Salebaan uu u horeeyo waxaanu ku bogaadinaynaa dadaalkii ay galeen iyo hawlwadeennada gobolada ee bahda caafimaadku oo gaar ahaan maanta gobolkan aanu joogno si gaar ah waxaanu bogaadinaynaa hawlwadeennada caafimaadka ee isbitaalkan ka hawlgalay iyo gobolka awdal guud ahaanba ee xaaladdan xakameeyay aad iyo aad baan ugu bogaadinaynaa waxaanu bogaadinaynaa hay'adda Save the Children oo iyaduna gacan weyn ka geysatay iyo dhammaan hay'adaha kale ee inaga caawiyo gargaarkan iyo gurmadkaas waxba lama hadhay anagu xukuumadahan wixii aanu tiri karaynay waa qabanay wax wal oo aanu ummadan u qabanno xilka ummadda anaga hayna manana halkaas aanu dhagax gelinay halkaas aanu leban gelinay waxaanu ka soo dabaalanay duruufo adag haddii aanu nahay xukuumad liidata oo qorshe aan lahayn ilaahay amarkii ilaahay sababuu bixiyaa ummadu waxay wax kaga badbaadaan waa dadaalka iyo fishanka iyo horumarka iyo higsiga iyo qadarka ilaahay iyo nasiibkii ayaaga haddaan ilaahay noo fududayn aanu muxuu ahaayay ayaan darannahay dadaal la'aanu la iman qarankani waxaa soo duruufaa kama soo dabaashin muddo hal sano gudaheeda waanu dadaalnay waa waajibna saaran ku faani mayno maantana olole siyaasadeed iyo tamashla halka umaanu imana gurmad baanu marka ololuhu bilaabmo xisbigani xukuumaddana waa xisbigii talada haysay muddo 7 sano waxaanu la soo bixi doonaa waay aragnimadayada iyo khibradayada waanu garnaqsan doonaa waxaanu la soo bixi doonaa waxaan ummadda u qabanay waxaan la soo baxaynaa waxaanu qaban doonaa khibradii waxaanu qabanay sidaan uga kordhin doonaanu keeni doonaa golahan maanta ma aha waxaan isagana bogaadinaynaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye iyo taageerayaasha xisbiga kulmiye oo hawlahan gurma ee shuban biyoodka iyo abaaraha dadaal weyn ka geystay waxaanu anagu maanta xukuumad ahaan gobolkan aan u sidnay gargaar dawo 120 kartoon oo dawo ah dawooyin kalena way soo socdaan waxaanuna aaminsanahay inaan laga warwari doonin in daway naga go'do ilaahay idamkii muxuu ahaa aad iyo aad baan u mahadsantihiin
dhammaan waxaanu bogaadinaynaa dadkii hawlahan ka qayb qaatay mas'uuliyiinta iyo maamulka gobolka iyo madaxda iyo xubnaha golaha deegaankana waa bogaadinaynaa wixii tala iyo dardaaranna arrimahaasna madaxa caafimaadka jeedisay waxaan leenahay iyagana dadaalkiina sii laaba golaha deegaanka duq u horeeyo iyo maamulka gobolka la shaqeeyo mas'uuliyiinta caafimaadka bulshada wacyi geliya ka hortagga ayaa ka fiican daweynta ka hortaggana aan xoog saar aad ba mahadsantii